السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمانتين سو دوادا aad baan inii salaamayaa. Waa walaashin Caasho Cumar. Kole indhowdu waan kala baadnay laakiin waxaan rabaa saaka inaan la wadaago in yaro quraac oo kooban oo ku saabsan caruurta subaxii oo kale waxyaabaha u jilicsan maadaama dadka qaarinta badan ay haystaan caruuro yar yar oo 2 sano gaadhaya 3 sano gaadhaya barkee aad bay ugu jilicsan tahay. Waxaan ka sameeyay koob daqiiqda samolina la yiraahdo ee galeyda laga sameeyay xabad ukuna saliid olive bikeere caana ah 2 qaado boorasha xabad muusa kadib hadda dabkii baan saaray daawaha waxaan u mariyay in yaro maaragtay subaga dabadeedna saasaan ugu sameynayaa kadib markaan imiga saa u sameeyay ee sidaa u diyaariyo waxaan sameynayaa kii markaan Nutella chocolate raba wuu ku cunayaa inkastoo ay caruurta u fiicnayn macaanka faraha badan leh laakiinse marmar ay u fiicantay caruurtu inay maaragtay ku quraacdaan wax fiican oo wanaagsan maadaama inta badan ay caruurtu ka maqan tahay way aniga inta badan caruurtu way ga maqan tahay subaxii 8 oo kale ayaan meel geeyaa 4 barka galabnimo soo qaxaystaa marka maalintii kula joogan way inay dareemaan maaragtay inay waalidkood la joogaan ilmo farxad badan bay u baahan yihiin ilmo tacab badan bay u baahan yihiin maaha kaliya ilmaha in cunto inta la siiyo dadna qol lagu xareeyo telefoon loo dhiibo waa inaad cunto wanaagsan oo nafaqo la siisaa waa in macnaha ilmaha korkooda ay ka muuqataa ilmaha maalin oo dhan boo activity sameynaya oo ciyaaraya marka waa inuu helaa allergy aad u fara badan marka saaka inta yar baa in la share gareeyay aad baan inii salaamiyaa dhammaantiin chocolate-ka sanimka inta yar ugu daraya waan u marmarinayaa kii markaa cunaya iyo bikeerigiisa caanaha maasha Allah dhammaantiin waxaan leeyahay subscribe ka ilaawina imaarata share gareeya cuntooyin badan oo caruurta ku saabsan ayaan soo wada hadii lahay ka dhigo oo aan rabaa inaan la share gareeyo si maaragtay uga faa'iideystaan waayo hooyo waliba de waxaan ku meynaan dhalan laakiinse macnaha maadaama aynu wadankeena maanta aynaan joogin oo wadan qabo waa joogno ilmo wuxuu u baahan yahay waxyaabo badan oo kala duwan oo lafaha u koriya barkee waxa jirta ilmaha marmar aanu amateedka cuntada cunin oo maaragtay xanaanada inta la geeyay inta badan hooyooyinka Soomaaliyeed waxay ka cawdaan ilmaha cuntada iskoolka kuma cuno marka hooyo waliba ilmaha cunto wanaagsan si aad baan inii salaamiyaa.